madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Shir Jaraa'id oo ku qabtay qasriga madaxtooyada waxa uu kaga hadlay dhowr qodob oo la xiriira siyaasadda gobolka abaaraha ka taagan geeska Afrika iyo sidoo kale xiisada ka aloosan dalka Yemen madaxweynaha oo shirkiisa jaraa'id hadlayay qadar 25 daqiiqo ah ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay khilaafka ku saabsan heshiiska dekedda Berbera ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya khaasatan dacwad la sheegay in dawladda Soomaaliya ay u gudbisay golaha ammaanka iyo dalalka Carabta waxaad ka warqabtaan dawladda Muqdisho ay dacwad geysay golaha ammaanka dacwaddaas oo ku saabsan Soomaaliland dhulkeeda oo ah heshiiska wada galeen dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliland ee gaar ahaan si gaara DP World iyo mashaariic aynu la galnay in lagu horumariyo Berbera arrintaas iyada meelaha ay khusayna waa gaarsiinay waraaqaheeda iyo warkeeda qaranka Soomaaliland waxaan jecelahay inaan u iftiimiyo waxa jira kow arrinta sida dadka qaar ku yiraahdaan waxa ay dacweeyeen DP World inaga inama dacweyn DP World inaga heshiiska la galay Soomaaliland baa la gashay goobta la garan karay ee laga wada hadlayaana waa dhulka Soomaaliland oo waa Berbera DP World maxaad Berbera u tagtay oo heshiis la gashay ninkan hina waa ninkan Muqdisho ka taliya arrinta macnaheedu waxa weeye dawladda warqadda qortay xamar joogta talaabooyinka aan sheegi doono oo dhan ayaa gafa iyagana ducay waxtar bay noo hay inuu kala socdo haddaba waxaan weydiinaynaa qolada Muqdisho ee maanta ka dacwoonaysa Berbera cid ka maamusha balse wuxuu doonayaa midnimada doonaya ay ka egtay midnimada Soomaaliyeed doonaysa iska wada shantii kale iyo boqolaal u gudbay tii kala tagtay 19 ka xabar ku tagtay ra'yiga aad ku doonaysa in Soomaali ku midoodan ka xabar jooga ma talanayo bal dadka u sheeg Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa kale oo uu ka hadlay abaaraha ka taagan geeska Afrika khaasatan kuwa Soomaaliland ku habsaday sanadkani waxaanu qeeladaan u diray hay'adaha caalamiga ah shacbiga Soomaaliland iyo sidoo kale dawladaha caalamka waa abaaraha cimilada isbedeshay ilaahay bari man kulaan nolosha uu baray ee raxmaadka barwaaqada inuu soo cilmi ilaahay ka baryana hase yeeshee caalamka waxaan u sheegaynaa in cimilada soo noqotay abaaraha isbedeshay maantana ay Soomaaliland abaartii ka taagantay dalka intiisa badan oo roobkii sanadkan soo jiiyay maxaanu ka qabanaynaa waxaanu qabanay nolosheena si inuu bedelnaa waa waqti dheer bay qaadanaysaa dhibaataduna way mareynaa waayo dee waa amur ka weyn qof binaadam iyo wax qabto cimilada isbedeshay xoolaha naga dhamaanaya waa ogtiin walaalayaal Muuse Biixi Cabdi isaga oo ka hadlaya doorashada hogaamiyaha xisbiga talada dalka Itoobiya haya la filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasina waxa uu yiri gobolka maanta xisaagu waa weyn mid hadlayaan Itoobiya kamid ah Itoobiya xisbigeedu wuxuu doortay gudoomiyaha xisbiga EPRD oo xisbiga isbahaysiga talada haya Abaay Ahmed waa ku hambalyeynaa gudoomiyada loo doortay waxa la rajaynayaa inuu noqdo prime ministerka iyana oo ku bogaadin marka timaado waxaan leeyahay Itoobiya waa dad weyn oo istaraatiijiga 100 milyan baa ku nool dal ballaaran waxaan u rajaynaynaa inay nabadgeliyo ku dhamaato siyaasadooda loolankeehi inay nabadgeliyo hawlahooda ku dhameystaan waxaan u fiirnaa taariikh wanaagsan iyo qadarin iyo taariikh Soomaaliya diyaaruna iyaga iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Yemen xagga inaga xigtada ka socdo mid walba Salmaan Cabdi Ali warbaahinta STN Hargeysa